Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalay dhammaantiin meel kasta oo ku sugan tihiin subax wanaagsan. Runtii Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. Nicmada ugu weyn qofka bini'aadanka uu ku mahadiyaa waa nicmatul islaam. Qofka bini'aadanka markuu rabo inuu shay u qabto, shayga uu rabo inuu qabto hadduu ka fikirin waqti uu siinin, shaygaas miro fiican kama helayo. Waayo bini'aadanka nin kasta wuxuu leeyahay hadaf gooni ayuu leeyahay. Hadafka aad leedahay yuusan ka hor istaagin waxyaalaha aad ka tilaabsan karto, waxyaalaha si fudud aad uga tilaabsan karto, waxyaalaha aad dhihi karto waan qaban karaa shaygan, hadda ayaan qaban karaa, balse ha isdhihin shaygan waxaan u dhiganayaa dib ayaan u dhiganayaa. Waayo bini'aadanka dhammaanteen waxa dib noo dhigay shay hadda uu qaban karo ayuu isdhahayaa waxaan qabanayaa berrito. Adduunyadu waa wareegto. Qofka bini'aadanka asagoo isku moodayna inuu wax khiyaanaya ayuu khiyaano sameynaya. Waxaa laga yaabaa shay hadduu qabanayo inuu isku maleeyo shayga inuu fiican yahay, balse qofka kale ayay dhibaato ku tahay. Waxaan kugu soo gudbinayaa videogan 5 qodob aad ku ogaan kartid qofka adiga aad jeceshahay inuu khiyaano kugu sameynayo. Qodobka koowaad, waxaa u qortay fariimo ayaa u qortay mise waa wacday. Waxaa laga yaabaa fariimihii aad u qortay inuu kaa soo jawaabo muddo hal beri mise saacadooyin. Taasi waxay ku tusinaysaa qofkan inuu kaa mashquulay, inuu wax kale ku soo ziyaaday, inuu wax kale uu jiro. Waayo bini'aadanka dareemo ayuu leeyahay. Qofka bini'aadanka haddii la dareensiiyo shay yar, haddii la dareensiiyo wax ayuu iska dhaadhicinayaa. Markaa aragto fariimihii aad u qortay mise wicitaankii aad wacday inuuba kaa soo jawaabaynin, taasi waxay tusinaysaa qofka inuu ku khiyaanayo, balse asagana iskuma maleynayo. Dhowr bilood mise maalin ka bacdi markuu kugu soo celiyo aad weydiiso maxaa kugu dhacay, waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho aniga runtii waxyaalo badan ayaa igu soo ziyaaday, waxyaalo badan ayaa gadaashaa igu soo kordhay. Marka runtii mashquulkii ayaa aad u fara badan. Mashquul jirin inuu kuu sheego ayaa laga yaabaa inuu ku dhahaa aabbahay ayaa xanuunsaday, hooyo ayaa meel ii dirtay, aabbo ayaa meel ii diray. Waxyaalo adiga aad ku ogeyn inuu kuu sheego ayaa laga yaabaa. Marka taasi waa calaamad ku tusinaysa qofkan inuu khiyaano uu sameynayo, balse asagoo isku maleynayo inuu khiyaano uu sameynaynin. Bini'aadan kastoo qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira. Bini'aadanka soo isku maleynayo qof wanaagsan uu yahay, balse runta way fiican tahay. Qofka in runta loo sheego la dhahaa adiga khalad baa ku socota, adiga waddo khaldan ayaa ku socota. Qodobka labaad, haddaa ballan gashaan runtii ballanta ma oofinayo. Runtii waxaan ka hadlayaa dumarka iyo ragga, labada qof oo isjecel mid ka mid ah hadduu khiyaano uu sameynayo waxa ku ogaan lahayd. Waxaa laga yaabaa labadiina inay ballan aad gashiin, qof inuu ballanta ka soo baxa, qofna uu ka soo bixin. Qofka ballanta ka soo bixin runtii wuxuu sameynayaa khiyaano. Nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu noo sheegay qofka munaafiqa waxaa lagu gartaa 3 calaamadood. Calaamadahaas waxaa ka mid ah qofka markuu ballan u galo inuu ballanta ka baxa. Waxaa laga yaabaa inaad ku gasheen ballan taariikh fulaan inaan isguursano ayaan rabnaa, taariikh fulaan waxaa dhacaya meherkeena ayaa dhacaya. Waxaa laga yaabaa inuu kaa mashquule, waxaa laga yaabaa inay gabadhu ay mashquusho, waxaa laga yaabaa ninku inuu mashquulo. Mashquulkaas runtii ma fiicno. Qofka bini'aadanka markii mustaqbalkiisii uu hadaf uu ka gaari rabo, mustaqbalkiisa markuu dhisan rabo, waa inuu wuxuu ku mashquuli lahaa albaabaha uu ka xiro, uu hadafkiisii iyo mustaqbalkiisii inuu dhisto uu waqti fiican u raadiyo. Laakiin hadday imaado waan mashquulsan yahay, runtii taas waxay tusinaysaa qofkan inuusan ku rabin, uuna khiyaano uu kugu sameynaya, uuna raadinaya albaabo uu ka baxa. Qodobka saddexaad, mar walbo su'aalo jeeda. Halkee ku maqnayd? Telefoonkaada waan soo wacay, maanta dhan busy ayuu ahaa, maanta dhan ayaan ku soo wacay, maanta dhan qoraalo fara badan ayaan kuu soo qoray, ma ii soo jawaabin, maxaa kugu dhacay? Su'aalaha fara badan waxaa u qiyaasi karnaa qofkan inuu ka hinaasaya qofka kale. Waxaa laga yaabaa inuu ka maseerayo, inuu ku jiro maseer. Maseerkana waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhali bini'aadanka, waxaana u badan maseerka dumarka. Rag qaar waxaa jira ay ka maseeraan dumarkoodii, balse waxa ugu badan maseerka dumarka. Markaa aragto su'aalo fara badan, qofkaas runtii sabab ayuu su'aalo ku weydiinaya. Shay ma dhaca sabab la'aan.
Su'aalaha uu ku weydiinayo waxaa laga yaabaa in sabab ay jirto. Waxaa laga yaabaa qofka inuu raadinayo fursad albaab kale uu ku furo si qof kale uu u barto. Qofka markuu su'aalo badan ku weydiinaya, hadaf gooni buu u leeyahay su'aalaha badan uu ku weydiinayo. Balse waxaa laga baahan yahay in markaad aragto su'aalaha farada badan oo wax macno soo siyaadinaynin, su'aalo fara badan oo waxba soo siyaadinaynin, markaad aragto waa inaad ogaataa qofkan inuu khiyaano kugu sameynayo, uuna raadinayo fursaddii qalbigaada ku burburin lahaa, fursaddii uu isku kaa ilowsiin lahaa, fursaddii qof kale uu u raadsan lahaa. Adiga waxaa laga baahan yahay inaad qofka oo kale aad faraha ka qaado, waayo Allah subxaanahu wa tacaala ayaa faraj fura. Marka Allah subxaanahu wa tacaala tala saaro qofka noocaas haddaad aragto, waa hubaal inuu khiyaano kugu sameynayo. Qodobkayga afraad, kalsooni la'aan. Labada qof oo isjecel waa hubaal inay isku qabaan kalsooni si jacaylkoodu u noqdo jacayl guuleysta. Marka kalsoonidu waa furaha jacaylka. Haddii mar kalsoonida ay baaba'do, meesha jacayl ma yaalo. Qofka barasho ayaa kugu dhiman. Markaad barato, si fiican aad u barato ayaa kalsooni fiican ka heli kartaa. Marka kalsoonidu hadday dhimato, jacayl ma jiro. Marka qofka hadduu kalsooni kugu qabin, meesha waxay tusinaysaa inuu qofkan khiyaano kugu wado, jacaylkaadana uu raali ku ahayn. Waa inaad ka danaysataa, waayo Allah subxaanahu wa tacaala adduunka wuu waasiciyay. Dad ayaa ku jecel, dad ayaa kuu baahan. Qof adiga aad u baahan tahay asagana kuu baahnayn inaad waqtiga iskaga dhumiso, macquul gal ma noqonayso. Qodobkayga ugu dambeeya, saaxiibo fara badan. Waxaa laga yaabaa qofkii adiga aad rabtay inaad mustaqbal aad ka dhigato inuu leeyahay asxaab fara badan. Balse haddaad aragto qofka noocaas oo kale, waqtigiisii farada badan uu siinayo asxaabtiisii mise dadkuu la shaqeeyo, marka qofkaas wuxuu kaa jecel yahay asxaabtiisa iyo shaqadiisa ayuu kaa jecel yahay. Waa hubaal inuu waqti fiican ku siiyo si aad u wada sheekaysatiin, si aad isbaratiin, si nolosha guurka intiina gaarin aad si fiican isku fahantiin. Qofka way fiican tahay inaad shakhsiyadiisa aad barato inta guursanin ka hor.